gudagale dhawaan wasiiro ka tirsan maamulka Soomaaliland oo ka soo laabtay dalka Itoobiya ayaa magaalada Hargeysa waxa ay ka sheegeen in ay dalka Itoobiya kula kulmeen madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo halkaas safar shaqo u jooga. waxa ay sheegeen in madaxweynaha ay kala hadleen arrimo la xiriira xuduudaha Soomaaliland iyo dabcan sidii labada maamul ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen. maamulka Puntland ayaan war rasmi ah ilaa ay hadda arrintaas ka soo saarin, balse wasiirka waxbarashada ee Puntland Cali Xaaji Warsame oo kamid ah waqtiga uu hogaaminayo madaxweynaha Puntland ee ku sugan magaalada Addis Ababa oo aan caawa ka wareysay waqtiga iyo waxa uga qabsoomay safaradaas ayaan isla su'aashaas weydiiyay. inkasta oo uu si taxadar ku jiro uga jawaabay, haddana waxa uu sheegay inuusan jirin shir rasmi ah oo labada dhinac ay yeesheen. haddaba intaan idin maqashin wareysiga Cali Xaaji Warsame ambal wax yar idin maqashiyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Biixi Yoonis oo sheegaya in ay magaalada Addis Ababa kula kulmeen madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. aan la kulmay madaxweynaha Puntland sabab la socdo Soomaaliland waa dad nabad jecel, nabad bay keentay. Soomaaliland waxay aaminsan tahay dialogue wada hadal wanaag ku samaysan cid aliyaal cidii wanaag doonaysa ama wada hadal rabta aan u furanahay albaabada Soomaaliland iyo wasaaradda ay la kulmi karaan cid aliyaal cidii danteeda iyo wanaageeda iyo waxtarkeeda rabta. Soomaaliland waa wadan xor ah oo waliba karaatan sayay keligii taagan. Soomaaliland xuduud mucayan u leeyahay inuu ku sameeyo maamulka Ingiriiska ka tagay waanu u sheegnay madaxweynaha xuduudda Soomaaliland halkay joogto nabadgelyo naga dhaxaysa, wanaag baa naga dhaxaya, waxtar baa naga dhaxaysa. anagu waxaanu aaminsanahay cid aliyaal cidii aanu la kulmayno ee wanaag rabta ee Soomaaliland iyo xuduudeeda iyo xaqeeda ilaalinaysa inaan wasi furan ku soo dhaweyno. saasaan kula kulannay waana lagu sheegnay yani Soomaaliland cadaawada ay u haysa dadka Puntland ku jireeyeen laakiin Soomaaliland xuduudeeda iyo xaqeeda iyo aan cidii isaga daba taageen. marka runtii shir fiican buu ahaa. horena la socota bari hore Puntland iyo Soomaaliland xagga security iska taageeri jireen Nairobi goor hore ku shireen oo lagu waqtiga xuduudaha inaga dhaxeeyay nabadeynteeda ama ha noqoto xagga argagixiso ama ha noqoto xagga virusiga. marka kulli cilaaqaad maadaama aynu jeclaan xal la leenahay inaynu wada hadal wanaagsan yeelana shaarimo wanaagsan ku wada noolaana ama ayaga ama Itoobiya ama Djibouti sidaas laga noqon waa waajib Soomaaliland dhulku uma aragto inay la hadasho qof kasta oo nabadeeda iyo wanaageeda iyo waxtarkeeda ay jirto. waa tahay hadalkaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo markii horeysay sheegayay in ay madaxweynaha Puntland Addis Ababa kala kulmeen. haddaba caawa ayaa wareysay wasiirka waxbarashada ee Puntland Cali Xaaji Warsame oo arrintaas iyo arrimo kale oo la xiriira si guud safarka waqtiga Puntland ay ku joogaan Itoobiya aan ka wareysay. waxaase marka hore aan wasiir Cali Xaaji Warsame weydiiyay safarkoodii waxa uu qabsoomay ilaa iyo hadda. Soomaaliland aad baan u mahadsan tahay. waxaan si gaar ah u salaamayaa dhammaan dhageystayaasha raadiyo dalka meel alla meesha joogaan. walaal aniga iyo wasiirka amniga waxaan ka mid ahayn waqtiga madaxweynaha u soo raacay dhinacan Itoobiya. waxaana asaas ku ahaa martiqaadkii dawladda Puntland loo fidiyay inay ka soo qayb gasho shirkii nabadda iyo amniga ee lagu qabanayay magaalada la yiraahdo Bahridaar oo loo yaqaano Kana High Level Forum in Africa. waxa shirkaasi muhiim u yahay waxa weeye in looga hadlo caqabadaha xagga amniga iyo nabadda ee hortaagan Africa. Soomaaliya wadan wadanaynaya weeye, waana wadan muhiim u ah nabadda iyo amniga geeska Africa. anagu waxaanu ku tagnay halkaas high level delegation iyadoo yahay oo madaxweynuhu ka mid yahay dadka ku qoran inay ka dhiibtaan talo iyo ka qaybgal toos ah khudbadna ku lahaa. sidaa darteed waxay ahayd si gaar ah soo dhaweyn si gaar ah madaxweynuhu sameeyey. waxaa kaloo ina fursad ahayd inay ka soo qaybgalaan madax badan oo ah madaxweynayaashii hore Afrika iyo kuwa hadda madaxweynayaal ah iyo dad fara badan aqoon-yahan ah. marka wuxuu ahaa runtii forum aad iyo aad u sareeya dhinac walba marka laga fiirsho. asaaskiisuna yahay Afrika sideeday khayraadkeeda iyadoo uga faa'iideysanaysa ama ka mineraalka ha noqoto
lagu khayaanayo oo dhaqaalahooda lagu dhacayo iyo sidii looga faa'iideyn lahaa in la iska kaashado waxa la wixii dhaawac kuwa nabadda iyo iskuurtiga Afrika shirkaas siyaasadda uu dhacay aad iyo aad baan fursad ugu helay madaxdii halkaas inaan la kulanno delegation si gaar ah loo fiirinayo inaan wahay marka nuxurka shirkaas ka soo baxay muxuu ahaa gobolku wuxuu ahaa inay Afrika iska kaashato sidii u ilaashan lahayd hantideeda iyo dhaqaalaheeda inay iska kaashato dhaqaalaha Afrika inay si loo isticmaalo wadanka si qaldan oo soo bixinin inay iska kaashato sidii shirkadaha petroolka iyo shirkadaha macdanta baarayay aysan loogu khayaan lahayn Afrika xagga contractiska iyo xuduudda ay leeyahay lahaa caqdi ilaalinaya xuquuqda ay leeyihiin bulshada ama eelka laga qodayo petroolka ama macdanta laga soo saarayo waana arrin anagu aad iyo aad madaxweynaha Puntland khudbad buu kulanka ka jeediyay khudbadda muxuu ku sheegay hadda soo ururiyay khudbadda wuxuu ku sheegay Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada dhaawac badan ka soo gaaray problemka xagga security-ga wadan khayraad leh oo la rabo khayraadkiisa inuu ka faa'iideysto wadan nabadgelyadiisa qiimo la geliyay oo la rabo nabadgelyadiisa in la fariisiyo wuxuu ka hadlay talooyin ku saabsan sidii la isaga kaashan lahaa in Afrika ay geeska Afrika iyo Afrika guud ahaan iyo adduunka intiisa badan ay ka kaalmaystaan sidii nabadda iyo looga wada shaqayn lahaa security-ga iyo amniga dhaqaalaha yar oo Afrika leedahay loo ilaalin lahaa inuusan si khaldan wadanka uga bixinin ama si khaldan loo isticmaalin talooyin badan uu ka jeediyay wuxuu kaloo ka hadlay sida ay tahay inay stability nabad u hesho Soomaaliya iyo Afrika iyo geeska Afrika oo dhan marka ma jiraan madaxdii ka soo qayb gashay cid aad si gaar ah ula kulanteen waqtiga ama madaxweynaha Puntland uu si gaar ah ula kulmay madaxdii ka soo qayb gashay waa la kulanay guud ahaan iyo gaar ahaanba hadday noqon lahayd Ethiopia hadday noqon lahayd Sudan hadday noqon lahayd Nigeria hadday noqon lahayd wadamada kale oo Afrikada dhexe madaxdii ka soo qayb gashay si guud iyo si gaar ah maadaama anagu aanu VIP ahaan ku nimid access baanu haysanay aanu intaas oo dhan aan kula kulmi karno wax badan baana isdhaafsanay intaan halkaas joognay waa maasantay wasiir arrin baa jirtay aad loo hadal hayay oo dhawaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland waxay Hargeysa ka sheegeen siiba wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland wuxuu sheegay in madaxweynaha Puntland ay kula kulmeen magaalada Addis Ababa ayna ka wada hadleen arrimo la xiriira muranka xuduudaha Puntland iyo Somaliland arrintaas maxaa ka jira horta والله أردت وقع في عناجنا في المدحوينها فأنت وحوي ما أنا أورن المديرة المدحوينها اللي سألوا على كل عمي وحنا نوعا سنة هاي شربة لسويني صوماليا وحكى عسنا بنتنا أو سجارة أو هاي اللي غلوا عسني اليوم ترك لنا عسنان وقتي الله فضيه وما شاء الله عبيه وما كفيه الله عبيه والله كاكيا والله سلامة يا بس صوماليا معي وحكوا أنا أو رسمية أو نحمر بنتنا من صوماليا المودي ما أنا ملايين هي وح في الرسمية الله ورحمه محايل ورحمه كل دولة بنتنا ودولة دوية من حوالينه هو شيء لما في الموضوع وزيرنا وحنا جاري كرو والله ما بنتنا لا داعي كلهم يدري لا داعي وحنا وحنا وضحنا وواحد نقصه ورحمه واحد يشلون هاي أنا وشركة وانا بنين هنا نلقى بعجارة وحنا نكعس الشركات وانا بعدين هنا نشاركنا أنا اليوم بنا نسوارنا أما بخايدا نكون شاحينه أما نجوف يسمى وحنا أقول لي عظيم هذه الأمر وحش وحكوا هذا الشيء أديك واحد من هذا الوضع ضرب طاشرين وبدي ضرب طاشرين قرب في كون عمل وحكي كل شيء وحكي كل شيء واين وحنا ملايين يا قابك الله بغي إنه وحقاب كل الدبلوماسية إذا نفهم إن أنا سرقنا مخصونا والله كسلام يودي الأسكار كي والله وده تنيني وحنا ملايين من حولنا عبد أكلنا إنه كذا فوق لا يحي لكن واحد ما شرط بوحة وعلى هذا أما عدك الهايد اللي حادثه صار الله وضع الله أما ماشى هكذا شو إذا كده إنه هكذا شيء شرط بوحة أو رسمي أو دعي مجرى صومها ما كان لقي ماذا في كذا أما في سلالة حتى أنا وزيرين شركة ريان كان لها دلويش من حولها كل شيء إجماع أنا نعرف
maana shirinin maana ka wada muqaddaadka naga dhaxeeya hadaan ka wada hadlayna annaga diyaarsan oo wax isla daymanaysa ma in la wada shiro ma in la wada hadlo diinayno inaan la wada hadlo Soomaaliland waa gabanaysaa intaas iyaga diin jiray inay wax waan wada hadal ay ka galaan annagu markasta in Soomaali wada hadasho diyaar baan u nahay laakiin qaabka loo dhigay waa qaab dimuqraadiyadda ka fog madaxweynaha dadku markuu soo yimaado xilli baan yahay shaqaalaha yahay wala soo imaanaya Soomaali baan wala sheekaysanaya umaleyn mahayo inay madaxweynaha hatta haddii si gaar ah u salaaneen inay wax gaar ah ka hadlaan umaleyn mahayo madaxweynuhu isaga arrinta cadayn doona laakiin waxaan ku sheegayaa delegation-kii meesha tagay war hadal Soomaaliland ma aan taginin هذا سؤالنا كمان أنا كنت قلنا لو يبغى نقوم على ماشي بالوقت كذا وكسرنا من احتمالها ما كل حيالها إسكاب الكايو أقوم بسمين معناها إن لقد قانون وقت ما يساوي شو تذكر هذا الورشات شركة ولا قال لها هذا شركة سؤال نقول لي وشرنا مقصود هذا اللاين هذا هالكاسون من حتى كذا وقينا وحين نقول له وين يلا وحسن كون هذا وحسن كل شيء وحسن كل شيء هذا المعصوم واحد بورا أنا واحد ما يكورني واحد لقمة وزينة ونحن لقمة وزينة ونحن وزين كذا هو هذا المعصوم واحد كمان